waa qiso qariib ah oo aad u cajiib badan. Waxaa ka sheekaysa gabadh yarayd ee ku dhacday oo ku noolayd mid ka mid ah tuulooyinka u dhow magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabia. Waxayna tiri, waxaan fasax gaaban u aadnay aniga iyo qoyskayaguba dalka Mareykanka. Markii aan tagnay waxaan kiraysanay guri qadiimi ah. Gurigana waxa u dhowaa qabuuro ama xabaalo ay ku aasnaayeen dad ka soo jeeday Hindidii cascasayd. Halka aan isira dul taaga Hindida cascas waa dadkii qaaradda Ameerika loogu yimi berigii la daah qaadayay, waana la dabar jaray badankoodii, wax yar mooyaane. Waxayna tiri xabaaluhu waxay aad ugu dhowaayeen guriga, kaliya 10 mitir oo kaliya ayay u jireen. Ninka guriga iska lahaa aad buu uga taxadiri jiray in qabuuraha cidi u dhowaato, maxaa yeelay xabaaluhu waxay ahaayeen xabaalo gobolka oo dhan laga yaqaano oo qisadoodu aad u caan baxday. Waxa aanu u sheegay reerka xabaashaas reer aakhirad in ay degan yihiin oo aanay marnaba u dhowaanin. Gabadha yar aad buu u xiise geliyay hadalka mulkiilaha gurigu. Habeenkii dambe ayayna soo baxday iyadoo iska ilaalinaysa inay cidi aragto. Waxayna aaday dhanka xabaasha balse ay u soo hubiso in meesha reer aakhiraadka la sheegaya degan yihiin iyo in kale. Waxayna istaagtay meel xoogay ka fog xabaasha oo markaa mugdiga habeenku muuqeeda ka qarinayay. Waxayna rabtay inay aragto reer aakhiraadka uu mulkiiluhu sheegay in ay habeenkii meesha isugu yimaadaan. Wax yar kadibna waxa ay maqashay oohin ka baxaysa qubuuraha meel ka durugsan. Waxay soo aaday dhankii oohintu ka baxaysay. Kadib waxay aragtay ilmo yar oo si daran u ooyaya oo weydiisanayana inay caawiso. Oh shit. Here we go again. Bal maxaad daawada sameyn lahayd ilmo yar oo saq dhexe cidla jooga oo welibana caawimo ku weydiisanaya. Way u soo dhawaatay waxayna weydiisay maxaad meesha ka qabanaysaa waqtigan. Waxa uu noo sheegay in waalidkii rabeen inay garaacaan, sidaa darteedna uu uga soo baxsaday meel uu ku laabtana aanu garanayn. Naxariis ayaa markaa qalbigeeda gashay gabadhii yarayd, waxayna si naxariis loogu tiri, kaalay aniga caawa ila seexo, berri markuu waagu baryo ayaad reerkiinni ku laaban doontaa. Wayna soo qaaday iyada oo su'aalo weydiinaysa wiilka yar, isaguna uu jawaabaya balse isagoo nidhaheeda marnaba fiirinaynin oo marba dhinac iska fiirinaya, laakiin wax shakiya ma gelin gabadhii. Guriga ayay soo gaadheen, waxa uuna ku yidhi wiilkii yaraa, ha ogeysiin waalidka haddii kale ima ogolaan doonaan inaan caawa halkan joogo. Madaxa ayay ruuxday waxa ayna ku tiri, waalidkay anigaaba iska ilaalinayo oo haddii ay ogaadaan inaan waqtigan dibadda u baxay si adag ayay i ciqaabi doonaan. Wiilkii yaraa wuu seexday iyana way iska seexatay, habeenkaana si nabadgelyo leh ayay labadooduba u seexdeen. Markii waagu bariyay, waxay hal mar maqashay codkii hooyadeed oo ku leh, soo kac hooyo oo kaale quraaco. Way soo booday si ay ilmihii yaraa u eegto, laakiin wax raado uu leeyahay ma aysan helin. Waxayna la yaabtay sida uu ku baxay maadaama uu albaabku xidhnaa ilmaha yarina aanu furi karayn, daaqadna aanu gaadhaynba. Way soo baxday, haddana waxay aragtay arrin kale oo yaab leh. Meel walba oo guriga ka mid ah waxaa daadsan raad dhiig ah. Aad ayay u cabsatay, waxayna u walwashay wiilkii yaraa waxa ku dhacay. Hooyadeed ayay u timi, waxayna u sheegtay wixii dhacay. Hooyadeed waa ay ku dheeldheeshay, waxayna u sheegtay inay soo hambarbartay, riyo xunna ay ku riyootay. Waxayna tiri waxaas waa riyo uun, ha isku mashquulin ee kaale quraacda cun hooyo. Mar kale ayay isku dayday inay hooyadeed soo tusto raadadkii, balse waxa la yaab kale ayaa ah inay wax raad haba yaraade weyday, xataa dhiigga ay imika daaradda dhexdeeda ku soo aragtay. Waxayna go'aansatay inay mar kale qubuuraha ku laabato si ay u soo xaqiijiso wixii ay aragtay ma run bay ahayd mise riyo. Iyada ayaaba ka shakisay inay riyootay iyo inay xalay run qubuuraha u aaday. Waxa ay u soo baxday dhankii qubuuraha iyadoo iska ilaalinaysa inay hooyadeed aragto. Waxayna bilowday inay u yeedho wiilkii yaraa oo ay baadhbaadho, balse ay u hubsato wixii ay aragtay. Waxayna cod ka maqashay meel ka fog laakiin qubuuraha dhexdooda uun ah, laakiin cod aan la fahmayn oo sida dabaysha oo kale ah ayuu ahaa. Waxay qubuuraha sii dhex socotaba waxay maqashay wiilkii yaraa oo la hadlaya oo ku leh, maxaa meeshan ku keenay yartaay? Waxaana gashay cabsi aad u daran. Waxayna si baqdin ku jirto ugu jawaabtay, adiga ayaan ku soo doonay, maxaa yeelay waxaad soo baxday adigoon waxba ii sheegin. Waxa uuna ugu jawaabay isagoo u digaya, hadda waa inaad meeshan si degdeg uga tagtaa, dibna ha ugu soo laaban, haddii kale waad dhiman doontaa oo reer aakhiraadkan ayaad ka mid noqon doontaa. Waxa uu kor u soo qaaday madaxiisa, waxayna aragtay indhihiisa oo wada caddaan ah, macnaha wax yar oo madow xataa aan lahayn ama midaba kale. Aad ayay u cabsatay, waxayna garan weyday waxay samayso. Waxay iska dhex taagan tahay xabaalaha dhexdooda sidii qof waalan, mana taqaana si ay hortiisa uga cararto. Wiilkii yaraa waxa kale oo ku yidhi, meeshan waa magaalo jin, ciddii u timaadana waxay ku qasban tahay inay iyaga u adeegto, wax kasta oo ay rabaan ay u soo qabato.
maalintaa laga bilaabana wax kasta oo weydiisto waa ay u keeni jirtay wiilka yari. Gabadhii waxa ay ku noqotay gurigoodii iyada oo aad u daalan. Hooyadeed ayayna wax walba u sheegtay. Hooyadeed ayaa isku dayday inay dejiso oo Quraan ku akhrido maadaama ay aad u cabsanaysay. Kadib wiilkii yaraa waxa uu bilaabay inuu ka soo dalbado waxyaabo aan caqligal ahayn amaba aan la heli karin. Dabcanna dalabadan waxa uu kaga dalban jiray riyada oo ay ku riyoon jirtay. Mararka qaarna saq dhexe ay qubuuraha aadi jirtay. Adigu waxba yaanan hadal idinku daaline, arrinkii gabadha yari waxa uu gaaray reerkii ay ka dhalatay oo dhan, maadaama ay xaalad halis ku jirtay oo ay habeenkii saq dhexe inta ay kacdo qubuuraha aadi jirtay. Ugu dambeyn reerkii waxa ay ku soo noqdeen magaalada Riyaad ee Sacuudiga, waxaana la geeyay inantii yareed cilaaj ama Quraan saar. Sheekhina waxa uu sheegay inuu jin gaal ah waswaasiyay. Muddo markii Quraan lagu wadayna way soo yara caafimaaday, balse dhacdadaasi waxa ay ku reebtay nolosheeda raadad aan weligeed ka baabi'i doonin. Oo waxa ay aad uga cabsatay ilaa ay imikadan mugdiga iyo waliba meelaha ciriiriga ah, waayo waxay dareentay in cidi u soo dhawaanayso. Ugu dambeyn daawada ma ka heshay qisadan? Haddii aad ka heshay oo aad jeclaan lahayd muuqaalada noocan oo kale ah inaan soo badino, like saar videogan, subscribe saar channelka oo nagu soo biir, fikirkaagana qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag. Sidaas iyo amaano Allah.